kulan wacan daawade waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay Said Cali Macalin Daawud oo dadaal badan lagu bixinayo sidii xabsiga looga deyn lahaa ehelada Lul Cabdulcasiis war ayay ka soo saareen go'aanka Xawaadle iyo Saleebaan ay ku gaareen badbaadinta Said Cali Macalin Daawud warbixino la xiriirta ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa muxuu ka bedeli karaa go'aanadii hore uga soo baxay maxkamadaha gobolka Banaadir iyo mid racfaanka isla gobolka Banaadir ee dilka toogashada loogu xukumay Said Cali Macalin Daawud dadaaladan imikan socda isbedelada ay dhalin karaan ayaan muuqaalkan ku falanqeyn doonaa marka hore waxaan ka codsanayaa inaad barteeda YouTube-ka aad ku soo biirtaan subscribe aad ii saartaan qaybta comment-iga aragtidiina aad kaga soo dhiibataan aan ku bilaabo toddobaadkan waxa soo shacbaxay warqad muujinaya in heshiis laga gaaray si diyo loo kala qaato isla markaana loo soo daayo Said Cali Macalin Daawud oo ay kala gaareen beelaha Xawaadle iyo Saleebaan aan si kala u dhigo waa beesha ay caruurta u dhashay Lul Cabdulcasiis oo Xawaadle oo awooga caruurtaasi uu dalbaday in beesha Saleebaan uu ka qaato magta ama diyada Lul Cabdulcasiis Allah u naxariistay kaas oo saygeeda dab uu qabadsiiyay ugu dambeyn ay u geeriyootay warqadaas ayaa si guud baraha bulshada u qabsatay waxaana ku yaalay saxiixa awooga dhalay caruurta Lul Cabdulcasiis waxa uu na dalbaday isla markaana uu cadeeyay in diyo uu qaadanayo warqadaas ayaa lagu xusay in isaga xaq uu leeyahay inuu qaato magta ama diyada Lul Cabdulcasiis maadaama caruurta ay dhashay aabihii dhalay uu ka geeriyooday isla markaana mas'uuliyadda caruurtaas isaga ay saaran tahay hadalhayn badan siyaabo kala duwan ayaa looga falceliyay arintaasi waxaana ugu dambeyn ay sababtay in si rasmi ah u soo shacbaxdo iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in warqadaas oo jidda ka timid ay hortaalo maxkamadda gobolka Banaadir oo laga sugayo go'aanka ugu dambeeyay ay ka gaari doonto iyadoo kol hore Said Cali Macalin Daawud ay ku xukuntay dil toogasho oo la xiriira inay ku heshay eedda la xiriira in xaaskiisa oo uur lahayd Lul Cabdulcasiis dab uu qabadsiiyay ugu dambeyn ay u geeriyootay geesta kale ehelada Allah u naxariistay Lul Cabdulcasiis waxa ay sharaxaad ka bixiyeen go'aanka la xiriira qaabka beesha Xawaadle oo caruur ay u dhashay Lul Cabdulcasiis waxayna sheegeen in warqada la wareejinayo baraha bulshada aysan wax saameyn ah ku lahayn kiiskan isla markaana go'aanka ehelka Lul Cabdulcasiis uusan waxba iska bedelin gaar ahaan aabaha dhalay Lul Cabdulcasiis kaas oo kala hore si rasmi ah u qeexay inuusan diyo qaadanaynin cafin doonin Said Cali Macalin Daawud ilaa tiirka cadaaladda laga keeno oo looga toogto Maxamed Barwaani oo kamid ah ehelada Lul Cabdulcasiis ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku yiri Baaba Sheekh Cabdulcasiis Maxamed Sheekhay waa aabba Soomaaliyeed oo gabadhiisa nolosha lagu gubay cadaalad u raadinteeda geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay 5 bilood ee la soo dhaafay sababta ugu weyn ee kiiskan uu juhdiga intaas la eg u gelinayay waa in gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ay badbaado helaan oo sida gabadhiisa Lul aan loo gubin kiiskan waxa uu marayaa meeshii ugu dambeysay mowqifka Baaba Cabdulcasiis iyo midka ehelka waxba iskama bedelin ma jiraan ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook Maxamed Barwaani oo kamid ah ehelada Lul Cabdulcasiis sharci ahaan warqada meelaha la wareejinayo wax saameyn ah kuma lahan sharci ahaan kiiskan ayuu yiri waxa kaliya ee aan sugayno waa in la dhameystiraa habraaca sharciga ah ee kiiskan lana fuliyaa xukunka maxkamadda kiiska marxuumad Lul waxa uu halbeeg u yahay hanaanka cadaaladda dalka waxaana isha ku haya dusha ka eegaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka falanqeeya arrimaha sharciga waxa ay qabaan in kiiskan uusan wax weyn ka bedeli karin dadaalka beelaha Xawaadle iyo Saleebaan ay ku doonayaan in Said Cali Macalin Daawud ay uga badbaadiyaan dilka toogashada ah oo labada maxkamadood ee gobolka Banaadir iyo tan racfaankaba ay ku xukumeen dil toogasho ah oo la xiriira qisaasta Allah u naxariistay Lul Cabdulcasiis muqdisho oo dadaalo badan ay ka socdeen oo la doonayay in beesha Sheeqaal oo ay ka dhalatay Lul Cabdulcasiis lagu qanciyo ayaa gabi ahaanba waxay albaabada ka soo xirteen odayaasha beesha Saleebaan ee ka socday ehelka Said Cali Macalin Daawud waxayna keentay in markan ay u dhalan rogtaan dhinaca ehelada caruurtii ay dhashay Lul Cabdulcasiis oo beesha Xawaadle oo ugu dambeyn ay isku afgarteen in diyo ay kala qaataan iyadoo oo wali xabsigu uu ku jiro Said Cali Macalin Daawud sugayana in la toogto maadaama maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ay ku raacday go'aankii hore uga soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ee ahayd dilka toogashada ah
dadaalada muqdisho ka soconaya ee badbaadinta Sayid Cali marba marka ka dambayso way sii tarayaan balse ehelada Lula Cabdulcasiis mowqif adag ayay ka taagan yihiin oo ah in Sayid Cali loo toogto dhinac kasta oo wada hadallo ay ku furmi lahaayeen ayay iyagu dhankooda diideen oo ay iska xireen ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaartay maxay kula tahay daawada kiiskan inuu ku soo gabagaboon doono mase qabtaa raja in Sayid Cali xabsiga laga daayo ama in tiirka cadaaladda la geeyo aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb nabadgelyo